تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم، عيد مبارك. waxaan rajeynayaa qof kasta oo daawanaya muuqaalkan inuu farxad caafimaad iyo bashbashba kula ciidayo dadka uu jecel yahay, ha ahaada ehelkiisa ama dadka kale ee noloshiisa kamid ah. alxamdulillaah, daqiiqado ka hor ayaa soo dukanay salaada ciida. waxaan rajeynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo acmaashii wanaagsan ee ramadaankii aan soo soonnay soddokii cishii la soo dhaafay. waxaan muuqaalkeena maanta kusoo qaadan doonaa qodob muhiim ah oo in inta badan la isweydiiyo. qodobkaasi wuxuu yahay sidee ku noqon karaa qof dadku ay jecel yihiin oo la ixtiraamo. haddii aynu nahay bini'aadamka, waxaan jecelnahay wax walba aan jeclaano in aan helno. sidoo kale kama maarano in aanu mar walba aragno dad ina jecel oo ina daneeya. haddaba isweydiintu waxay tahay, maxaa qofka loo jeclaadaa oo dadku xaggiisa uga ordaa mar walba, maxayse qofka kale loo nacaa oo dadka xaggiisa uga diidaan ama loo diidaa? haddaba inta badan waxaad jeclaan lahayd inaad ogaato sidee ku noqon kartaa qofkaasi oo kale dadku ay jecel yihiin oo agjoogiisa lagu raaxisto ama la xiseeyo. waxaa jira wadooyin badan oo haddii aad raacdo aad ku noqon karto qof dadku ay jecel yihiin. wadooyinkaasi kaagama baahan khibrad iyo xeelad inaad u leedahay, keliya waa fan kaaga baahan inaad hirgeliso kadibna aad ku dhaqanto. hubaal haddii aad ku dhaqanto qodobadan aan kuu sheegi doono, noloshaad way isbedeli doontaa, waxaadna horumari doontaa xiriirka kala dhexeeya bulshada. waxaase maanka ku haysaa in dadku aysan isku mid ku ahayn, qof kastana wuxuu leeyahay dhaqan u gooniya taasoo cidna uusan la wadaagin. waxaa la yidhaahdaa dadku waa sida albaab xiran oo kale, qof kasta wuxuu leeyahay furo u gaar ah oo ku furto. haddaba qofka maskaxda badan wuxuu adeegsadaa furaha saxda ah ee qofka ku habboon. qofka isku dayaya inuu fahmo qof walba waxa uu ka helay iyo waxa uu necab yahay baa kasbada qulubta dadka. sidaa daraaddeed waxaan ila wadaagi doonaa 15 qodob oo ay muhiim tahay inaad iska ilaalisid ama aad il gaara ku eegtid. haddii 15 qodob aad dhaqan gelisid isla mar ahaantaana aad ku camal fashidna, waxaan hubaa in dadku ay ku jeclaan doonaan. laakiin waxaa muhiim ah, raaligelinta dadka iyo jacaylka dadku waa arrin mustaciil ah oo la gaari karin. macquulna maan suurtagalna ma noqonayso in dadka dhan ku wada jeclaadaan. taas macnaheedu wuxuu yahay, haddii 15 qodob aad dhuuxdo macnahooda, taas macnaheeda kama wadno dadka dhan ayaa ku jeclaan doonaa. saasna macnaheena ma ahan. macnaha wuxuu yahay dadka qaar inay ku jeclaan doonaan ama ay tahay sifo wanaagsan oo muhiim ah inaad adiga lahaatid dabeecadadan ay ka mid noqoto. qodobka koowaad wuxuu yahay, noqo qof iimaan leh. dadku way jecel yihiin qofka iimaanka leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa oo qalbigiisa iimaanka iyo alkacabsiga laga helay. qodobka labaad wuxuu yahay, noqo qof daacada. ma ogtahay dadku waxay jecel yihiin qofka daacada ah, ma jecla dadka labuujiilayaasha ama dadka khiyaanada badan oo marka hore dadka u muujiya in ay daacad yihiin, gadaalna iska bedela oo dib ka keena ficil kale. dadku waxay jecel yihiin qofka daacadda ah oo wixii loo dhiibto loogu imaan kara. qodobkaasna waa muhiim. qodobka saddexaad, iska dhowr inaad dadka u gafto. dadka inta badan ma jecla dadka dhacdhac badan oo gafka badan. dadku waxay jecel yihiin qofka dantiisa ku mashquula, waxa uu asaga loo diro oo keliya ka soo baxo. waa muhiim marka inaad iska dhowrto inaad dadka u gafto. qodobka afaraad, ilaahay dartii u jeclow dadka. waa qodob muhiim ah, qofka inaad u jeclaato ilaahay dartii adigoon wax danan ka lahayn. qofka bini'aadamka waxyaabaha lagu qiimeeyo waxaa u liita quruxdiisa, magaciisa, hantidiisa iyo wixii lamid ah. qofka bini'aadamka waxyaabahaas u liito, waxyaabaha lagu qiimeeyo ogo waxyaabahaas way dhamaadaan. laakiin qofka ilaahay dartiis ku jecel isagoo dan ka lahayn, wax dan uu ka leeyahay habeeraad isan jirin, ilaahay dartiis ku jecel muslimnimo iyo islaamnimo iyo akhlaaq iyo diin ku jecel oo kaliya, iyo qofka kale ee dan gaara ka leh oo dan gaara kugu jecel iska mid ma ahan. marka dadku way jecel yihiin qofka ilaahay dartiis dadka u jeclaada, isagoo dan ka lahayn ilaahay dartiis u jeclaada dadku way jecel yihiin. qodobkaasina waa qodob muhiim ah. qodobka shanaad, qof kasta oo aad la kulanto ku qaabil weji farxad leh, kuna bilow salaanta, una dhoola caday, si la mid ahna magaca uu jecel yahay ugu yeer. qofka marka ugu horeysa aad is aragtaan, waxaa muhiim ah in aad salaanta islaamka ku salaantid, isla mar ahaantaana farxad iyo dhoola cadayn weji farxad aad u muujisid, si la mid ah qofka magacyada uu ka helo ama magaca uu jecel yahay inaad ugu yeertid. iidan waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka bini'aadamka qulubtiisa lagu soo jiito. qodobka lixaad, haddii jeer dhoola caday wejigaaga ha ka dhigin mid laga naxo ama laga dido. dadku waxay jecel yihiin qofka farxadda badan, dhoola cadaynta badan, wejigiisa markasta furan yahay. laakiin haddii aad aado qof weji maxbuus ah oo markasta iska xanaaqsan oo wejigiisa dhan waxa si kale yahay, dadku waxa waaye haddii qof laga yaabo qof aad danka lahaa oo adiga wax kuu sheegan lahaa oo adiga danta kaa soo gashay, markuu wejigaaga arko xanaaqa kaa muuqda iyo carada kaa muuqato, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu dib iskaga laabto. dadkan kuma jeclaanayaan, dadku waxay jecel yihiin qofka farxadda iyo dhoola cadaynta ee wejiga furan. iidan waa qodob aad muhiim u ah. qodobka toddobaad, indhahaaga ka laabo dadka gafafkooda.
dadka qaladaadkooda indhaha ka laabo, dadka waxyaabaha qaladka ka dhacaya ma ahan inaad eegto ama aad baabarto. Ogow qof kastoo bini aadama wuu qaldama, qaladna wuu ka dhacaa. dadkan waxay jecel yihiin qofka ceebtooda astura, qaladaadka ka dhacayna u qariya. taas macnaheedu ma ahan qofka hadduu qaldama inaad qalad ku fiirsato, qalad u sheegi kartaa, laakiin waxaa laga baahan yahay si xigmad leh oo waanin wanaagsan inaad qof wax ugu sheegto. laakiin qofka ceebtiisa inaad dul geshid ama qaladaadkiisa aad daba geshid oo aad baabaartid, taas waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka kugu nici karo. laakiin haddii qofka qaladkiisa aad iska dhatirtid oo aad indhaha ka laabatid oo aadan baabaarin, dadku waxay ka mid tahay waxyaabaha qulubtooda lagu soo jiito. qodobka 8aad, qofka haddii uu buka soo booqo, yacni qofka haddii uu xanuunsado inaad soo booqatid oo aad xaalkiisa ka wardoontid. si la mid ah qofka haddii uu geeriyoodo dunida ka tago, waxaa wanaagsan si la mid ah inaad tacsiyadaysid oo aad eheladiisa, walaalihiisa iyo asxaabtiisa kale aad u tacsiyadaysid. qodobkaas waa qodob isagana dhankiisa kale muhiim ah. qodobka 9aad, farxadda iyo murugada dadka la qaybso. ogow dadka bini'aadanka ama qofka bini'aadanka ah lama garto dadka qiimahooda marka waqtiyada farxadda iyo barwaaqada qof kasta wuu ku dhoola cadeyn karaa, wuu kula joogi karaa, waqti wuu kula qaadan karaa. qofka haddii aad doonayso inaad ogaato qiimaha agtiisa aad ku leedahay, waxaad eegtaa waqtiyada dhibaatada. qofka xilliga dhibaatada garabkaaga taagan, xilliga farxaddana farxad kula qaybsada, murugadana kula qaybsada, dadka kale iska mid ma ahan. dabcan waa qof dadka kale kaaga duwan. marka qofka bini'aadanka qiimihiisa waxaad garan kartaa xilliga dhibaatada. marka waxaa muhiim ah dadka inaad xilliga farxaddana aad garabkaaga taagan tahay oo aad qofka la jirtid, si la mid ah xilliga murugadana qofka inaad ka tagin oo garabkiisa aad hagaatid. idan waa muhiim. haddii asaas ahaatidna dadka qalbigooda, qulubtooda waxbaad ku yeelan doontaa insha allahu tacaala. qodobka 10aad, haddii uu ku casuumo qofka ka ajiib oo ka yeel. qofka haddii uu casuumaad iyo meel kugu ballamiyo oo adiga casuumaad kuu fidiyo, waxaa muhiim ah inaad ka aqbashid dhan kastoo aad leedahay. macnaheeda markaa ku leenahay in cadeeco qofku ajiib, taas macnaheedu maaha in wax walba ku cadeeceedo, laakiin wixii adiga wanaag ku ah inaad ku cadeecdo waa muhiim. waqtiyada dhan kale ama howlo kale sida cibaada iyo waajibaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku saaran markii aad leedahay qofku waa laga yaabaa inaad dib u dhigdhahdid. taas macnaheedu maaha marka waajibka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku saaray qof bini aadam madaxiisa inaad u dhaafto ama waqtigiisa dib u dhigtid. marka waxaa muhiim ah inaad qofka markii uu ku casuumo ama meel uu kugu ballamiyo in qofka aad aqbashid oo waqtiga ilaalisid. idan waa muhiim. dadka noocaas dadku way jecel yihiin. qodobka 11aad, xumaanta wanaag ugu bedel. yacni qofka haddii uu ku xumeeyo, sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu dardaarmay, qofka haddii uu ina xumeeyo waxaa wanaagsan inaan wanaajino, haddii uu ina wanaajina si lamid ah waxaa wanaagsan inaan wanaajino. marka haddii uu qofka aad adiga xumeysay ama qofkii adiga ku xumeeyay haddii aad wanaag u muujiso, aad wanaag ugu bedesho, qofkaasi aad ayuu ula yaabayaa. kadibna wuxuu ku qasbanaanaa qofku inuu adiga ku raali geliyo oo dib kugu soo laabto. danna waxaa dhacaysa qofkii inuu sidaasi kugu jeclaado ama qofka qalbigiisa ay wax ku galaan. qodobka 12aad, haddii jeer dadka u gargaar. yacni ahaa qof mar walba caawimaad badan dadka caawiya, qof walba garab siiya, u gargaara. waa muhiim iyadana dadka caawimaada badan oo dadka garab u fidiya oo waxay yacni garabka siiya xilliyada dhibaatada ay ku jiraan, iyo dadka kale iska mid ma ahan. qofka garab ku siiyo ku caawiyana qiimo agtaada uu ku yeelan doonaa. qodobka 13aad, noqo qof dhageysta fiicana. taas macnaheedu wuxuu yahay qofka kula hadlaya ama markii aad qof uu kula hadlayo waxaa wanaagsan inaad dhageysid. anaga waxaan jecelnahay badankeen marka qof aan la hadlayno in hadalkeena uu bato. waxaan jecelnahay in anaga hadalkeena uu bato oo hadalkeena mar walba u sareeyo, laakiin waxaa wanaagsan qofka inaad dhageysto mar walba. qodob kale ku raaciyo, qofka markii uu kula hadlayo si fiican u dhageysto, si la mid ah qofka indhaha ka eeg. waa inaad si toos ah aad indhihiisa u eegtaa adigoo dhageysanaya. waxaa wanaagsan qofka markuu kula hadlayo in dhageysigaaga uu bato, hadalkaagana uu yaraado. qofku wuxuu dareemayaa markaas in hadalkiisa qiimo weyn agtaada uu ku leeyahay. qodobka 14aad, muuji inaad daneynayso qofka. yacni qofka mar walba xaaladihiisa ka wardoon, caafimaadkiisa, waqtiyadiisa la soco. qofka aad daneynaysid oo mar walba dantiisa aad ku dhiirigelinaysid, wixii dan u aad ku wanaanaysid, wixii qaldan aad ka celinaysid. qofka mar walba yacni kuma sheegayo qofka inaad daneysid inaad u muujisid oo aad taqaanaa dabcan si aad qofka ugu muujinad inaad daneynaysid. marka waa muhiim qofka adig ku daneynayo oo ku qiimeynayo mar walbana xaalkaaga iyo dantaada kugu waaninayo waa qof dadka kale kaaga duwan dabcan. qodobka ugu dambeeya ee 15aad, hadiyad u keen qofka kana farxi. ugu qofka dad u keentid hadiyad iyo wuxuu ku farxo. hadiyada ma ahan in ahaato baabuur weyn iyo guri weyn iyo taas macnaheedu ma ahan. hadiyadu wax yar bay noqon kartaa. hadiyada badnaan ma gasho, weynaan ma gasho. muhiimada xawaa wax yar oo qofku ku farxayo uu jecel yahay inaad u keento. marka idan waa muhiim inaan qofka hadiyadii wuxuu ku farxaada aad siiso ama aad u keento. xitaa qofka haddii aad isku dhacdaan ama haddii aad kala fogaataan, haddii uu yahay qof bini aadam oo qiimo leh oo qiimihiisa yaqaana,
hadiyadaasi inta noloshiisa ka dhiman way u aali doontaa oo xafidi doonaa. laakiin waxa ka hadlayna waa qofka bini'aadanka ee qiimaha la ka hadlayna. si kastoo qofka isku dagaashaan ama aad marataan, hadiyadii iyo waxaad u keentay wuu xafidi doonaa oo wuu ilaali doonaa, meel ayuuna ku xafidi doonaa. xigmad ayaa waxay tiraahdaa dadka maskaxda u saaxiibka ah waxay leeyihiin cadow fara badan, halka dadka qulubta u saaxiibka ah ay leeyihiin asxaab fara badan. intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa 15 qodob. waxaa rajeynayaa in 15 qodob aad dhuuxi doonto, isla marhaantaana macaanidooda aad maskaxdaada ay geli doono insha allahu tacaala. sidaan hore hordhacna kugu soo sheegay 15 qodob macnaheedu maaha dadka dhan inay ku jeclaadaan, laakiin waa khibrad ka mid ah khibradaha aad ka yeelan nolosha, iyo in dadku qalbiyadooda aad saameyn aad u wanaagsan aad ku yeelatid. ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtigiina ka dhiga mid wanaagsan. intaas ayaa kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.